shiishaddu waa tubaakadii saddex nooc bay u isticmaalaan wala tubaaka khaliya saarta bahasha ku gubta oo dhuxul saara qola tubaako munakaha intay xagga dambe galaan bay khamiiriyaan waxyaabaha lagu khamiiriyo waxaa ka mid ah khadkan wax lagu daabaco madbacadu khadka isticmaalaan waa khad yaro dhalada yaro intaa waxa laga yaabaa dhowr kun oo kitaab inay daabacdo kaasaa lagu daraa waxyaabaha lagu khamiiriyo ka mid ah waxaa ka mid ah nakahaadka frutiska ama tufaax ama nacnaac ama waxaasi nakahaadkaasaa ka mid ah waxyaabaha ay ku sameeyaan laakiin shiishaddu miyay ka gedisan tahay shiishaddu kama gedisana saddexda maadde ugu khatarsan ee sigaarka ku jira waa nikotiinka soo ma taqaaniin nikotiin waa safiirkii faransiiskii sigaarka u doodi jira baasha loogu magac daray ee la shiboon deganaan jiray waa nin faransiisa magacii nikotiinka kow iyo daamurka maxaad tidhaahdaa laamiyeri miyaa la ydhaha xamar baalkan lagu dhiso waddooyinka ya laami okay waa qatraan waa daamur iyo carbon monoxide oo saddexda ugu khatarsan ee ku jira bahalka ee mawaadoodu tiro badantay kuwa kale aynu sheegayno oo dhamma waa khataro waa ku jiraan laakiin quantatiga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maaddo quantatiga ku jira badan shiishaddu waxay leeyihiin kow carbon monoxide-ka ku jira wuu ka badan yahay ka laga cabo qofka shiishadda cabba carbon monoxide-ka uu cabbaa wuu ka tiro badan yahay ka sigaarku cabba waayo ka sigaarka uu cabbaa wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda laakiin kani wuxuu ka imanayaaba ilaa dhuxusha lafteedii ilaa dhuxushii baad nuugaysaa oo qiiqii dhuxushaad nuugaysaa maadaamaad qiiq dhuxuleed nuugayso carbon monoxide-kaad cabbaysaa waxay leeyihin 20 times buu ka badan yahay ka sigaarka laga cabbo waa marka koowaad waana maadda musartana waa maadooyinka kansarka laga qaado waxaa kaloo ka mid a bay leeyihin nikotiinka iyo daamurka ku jira iyana way ka tiro badan yihiin labadaba waxaan jeclay inaan waxoogaa ka tilmaamo shiishaddu dadka badh horta shiishadda iyo sigaarka waxa qudha u dhexeeyaan odhan kare muuqda waa filtrasationka waa qaabka loo filtergareeyey labada sigaarkana buush yar baa la dhex mariyaa u filtara tanna biyaa la dhex mariya labaduba waxay filtergareeyaanoo badani ma jiro waxa ugu badanee labaduba ay filtergareeyaan waxa weeyaan in daamurka ka mid a waa sababtay biyaha shiishadduna yalowga u noqdaan sigaarka dabadiisuna ay yalow noqoto maadooyinka ku jira sigaarka dhammaantood waxaynu leenahay waa ku jiraan shiishaddana faraq u dhexeeyaa ma jiro waxa qudha faraqaynu nidhi waxa weeyaan qaabka loo sameeyo filtrasationka ama midna biyo dhex mara midna buushkan yare la cabbayo dhex mara labadaba waxaan ka casi waa daamurka ama laamiga markuu meesha tan dhex maro qayb ka mida ku hadhaa casaada baxthi ay sameeyeen ama cilmi baadhis New Zealand lagu sameeyaa waxaa la tilmaamaya sigaarka la cabo sannadkii daamurka ku jira bay yidhaahdeen haddii waddo lagu dhisi lahaa 5 kilomitir iyo badh wadda abaan u baahateen daamurka leen lagu dhiso bay yidhaahdeen sigaarka bini'aadamku cabo keliya lagu dhisi kari lahaa waa daamurka ku jira waxay tilmaamaan nikotiinka ama sunta nikotiinka ee baalku jirta horta daamurka intaanan dhaafin daamurkaoo qudha haddii isaga kimikali la baadho 50 maaddo oo sababa kansarka ku jira daamurkoo kaliya 50 maaddo oo sababa kansarka ayaa ku jira daamurka dhexdiisa maaddadan kale nikotiinka aan tilmaamayna ku jirta nikotiinka sidiisuba marka hore waa maaddo lagu laayo cayayaanka beeraha iyo dhirta yaryar labadaba waa lagu dili karaa beeraha marka lagu shubo dhirta yaryar ka soo horbaxdana waa gumaadaysaa xayawaankana waa gumaadaysaa walidaalika waxaa la yidhaahaa 60 miligram oo nikotiina haddii wariidka lagaa siiyo haddii xididka lagaa siiyo khalaas waa dhimanaysaa laakiin
inuu jidhku absorbgareeyo sambabka laga absorbgareeyo ayaa quantity-geedu yaryahay. That's why aad u nooshay weli. Laakiin haddaad sigaar cabbi lahayd oo xagga lagaa siin lahaa waa horay madhan lahaayeen, cidi kama noolaateen qolada sigaarka cabta. si kale markaynu tilmaamno, nikotinku waa maaddo sababta walafka ama addictionka oo uu ka khatarsan yahay xataa khamriga markay noqoto xagga addictionka. maadda qiiqan la cabo 85% ilaa 90% buu gaadhsiisay bay leeyihin, halka khamriga ay ku qiimeeyaan 15%. qaadku dhanka wuu ka yaryahay oo walafka qaadka waa maadooyinka la walfuu ka mid yahay qaadku addictionka. laakiin inaad qaadka iska daysaabaa ka fudud inaad sigaarka iska dayso, oo labada waxaa adag sigaarka addictionkiisu ka adag yahay qaadka. marka aan soo koobo, waa xanuunkan keena qofku inuu cimri degdego. nin dhallinyaro markiiba madaxa caddaaday oo calaamaadkii da'du ka soo muuqdaan waa cimri degdeg. sigaarku wuxuu ka mid yahay xanuunnada keena cimri degdeg ah. waxay idhahdeen sigaar cabku 10 sannadood buu da'diisa ka weeyey bay idhahdaan. muuqaalkiisu waa xanuun ku dhaca wuxuu ku dhacaa bay idhahdaan maaddo jiin cajiib ah oo ah jiinka dib u cusboonaysiiya DNA-da qofka iyo seliskiisa unuggiisa cusboonaysiiyo khalkhalgeliyaa. marka sida xanuunkaasi oo kale ayuu wuxuu ku reebaa qofku inuu ka horgaboobo qofka kale. oo sigaar cabku waxay dhahaan 10 sannadood buu ka weeyey da'diisa normalka ah. marka aan soo koobo, shiishadda daraasaad badan baa maanta lagu sameeyey, cilmi baadhis badan. maalan jaamacadda Virginia Commonwealth ee Maraykanka ah, cilmi baadhis ay samaysay uu hogaaminayo brofesor la yidhaahdo Thomas Eisenberg oo lagu soo saaray jariidadda caafimaadka atibbil waqaa'iga ee Maraykan. waxa uu leeyahay kuwa shiishadda cabbaa waxa ay nuugayaan ama waxa ay cabbayaan carbon monoxide iyo nikotiin u bandhigaya wadna xanuunka iyo xididda engega iyo nikotiin oo ah isna maaddada keenaysa idmaanka. markaynu soo duuduubno, daraasada ama cilmi baadhistaasi waxa lagu sameeyey 31 qof oo mutatawiciina oo da'dooda 18 jir ilaa 50 jir u dhaxayso. qaarna xabad sigaara la cabsiiyey, qaarna shiishad baa la cabsiiyey. kadib waxaa la baadhayaa markay midna sigaarka cabbo midna shiishadda cabbo, qof walba dhiig baa laga qaadayaa. waxaa la baadhayaa dhiiggiisa inta maadde ee ku jirta, siiba waxay baadhayeen oxideska carbon monoxide iyo carbon dioxide waxa jidhkaaga ku jira. waxay kaloo baadhayeen nikotiinka jidhka ku jirta. dabeetana waxay idhahdeen halka shiishad ee uu cabbay wuxuu ka badan yahay kan xabadda sigaara la siiyey 48 goor. yacni isagoo 48 midhoo sigaara cabbay bay u dhigantaa. walidaalika buu wuxuu tilmaamayaa brofesorkaasi Thomas Eisenberg la yidhaahdaa, daraasadan ama cilmi baadhistani waxay sheegaysaa buu yidhi, nuugista la nuugo shiishaddu inay ka khatarsan tahay sigaar cabbista caadiga ah. markasuu daraasaadkan ingiriisku uu leeyahay mukaafaxatu tubaqa la dagaalanka sigaarka, iyana waxay soo saareen iyagoo baxthi sameeyey inuu in badan ka badan yahay carbon monoxide iyo bahlada uu nuugaya waxa sigaarka cabbaya caadiga uu nuugayo. waxay qiyaaseen dhiiggiisa mid walba inta ku jiraysa, halka qofka caadigaa bay yidhaahdeen 3% wax ku dhadhow dhiiggiisoo dhammi aanu si caadiya u shaqaynaynin. ka sigaar cabka fudud 20% baan dhiiggiisa si caadiya u shaqaynaynin carbon monoxide ku cabbay daraaddeed. ka sigaar iyo cabka weyn ee baakidhiya wax ka badan cabba 30% ilaa 4% dhiiggiisa ka mid aan normal u shaqaynaynin bay tilmaamayaan. Dr. Warren wuxuu tilmaamayoo kale 10 miligaraam oo tubaako ah oo shiishad lagu cabbo 30 daqiiqadood waxa ay keensanaysaa buu leeyahay 4 ilaa 5 midhoo sigaaray u dhigantaa. buxuusta nooca laga sameeyey waxay ku xidhantahay tubaakada nooceeda, qofka iyo qaabka uu nuugayo, iyo bahasha iyo qaabkay u samaysantay. marka qaar baa waxay gaadhi karaan bay leeyihin ilaa 400 oo xabbo oo sigaar ah. normalitigu wuxuu u dhexeeyaa bay leeyihin 48 xabbo ilaa 70 midhoo sigaar ah. marka dadka shiishada cabba waxay is leeyihiin waad ka khatar yartay kuwa sigaarka cabbaya. kama khatar yare uu ka khatar badan yahay.
dhowr sababood ba uga khatar badan yahay dosage-kiisa oo dhan isaga horta mar buu wada qaataa ka sigaarka cabaya waxaa laga yaabaa inuu wakhti u dhexdhexaysiiyo laakiin kan hal saac buu fadhinayaa oo halkaa saac oo dhan qiiq buu cabbayaa waa marka labaadee sigaarka nawcun maa qaabunbaaba loo kontaroolaa waxa lagu darayo laakiin xashiishadda si loo kalaa loo sameeyaa shiishadda tan la nuugayo si loo kala ayaa nokahaadkan iyo waxa lagu darayo lagu sameeyaa marka kontarool kuma jirto saa daraaddeed way ka khatar badantay bay leeyihin daraaso sacuudiga ay samaynayeen jaamacad ku taalla 4 sannadood socotay waxay ku qiimeeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabbaa bay baadheen way kala noocyo gedisantay bay leedahay waanay kala khatarsantay laakiin marka la isku celceliya bay yidhaahdeen 8.32 miligram nikotiina ayaa cala ra's ugu jira waxay ku qiimeeyeen oo ay tilmaamayaan shiishadaasi inay u dhiganto 70 midho sigaara sigaarku dunida wuu soo yaraanayaa eeshiya iyo caalamulmuslimiinkana wuu sii tiro badanayaa reer galbeedku horey u ogaadeen sigaarka iyo dhibuhu leeyey dabeetana qawaaniin badan baa lagu xadeeyey dadkii wacyigelin badan baa la siiyey brogaraamo badan baa laga sameeyey idinkana waxaan idin leeyahay carun waa ninka google image intuu galo ama youtube galo sawirrada xanuunnada laga qaado intuu daawado sigaar dambe cabba intuu daawado dadka xanuunka ku dhacay oo qof walba kliinikan in lagu tusayo markii uu baakirka hore cabbay siduu noqday markuu intaan cabbay siduu noqday kansarka ku dhacay inta xanuuna ku dhacay ay tirinayaan tala bixinta dhakhtarka qaar diiday iyo say ku dambeeyeen haddaad aragto yacnii maad istidhaahdeen waxba qof bini aadami uu dib ugu noqon karayaa laakiin caalamulislaami iyo eeshiya inteeda badan waxaad mooddaa sigaarku inuu ama qiiqa cabistu inay si khayru caadiya noqoto sacuudiga oo meeshay diintu ku soo degtaya 15 bilyan oo sigaar u cabbaa sannadkii waxay idhahdaan 8 bilyan oo lacag ku isticmaalaa masar 80 bilyan oo sigaar ay cabtaa sannadkii bay idhahdaan dunida waddanka ugu badan marka dadka deggan iyo inta sigaar cabtan la soo eego waa turkiga 7% baa cabbaa waa caalamulislaami waxaan ka warramayaa duwalka carabeed bay yidhaahdaan 200 bilyan oo sigaar ay cabbaan sannadkii oo inta badan maraykan ay ka iibsadaan marka la isku dara bay dhaaheen dowladaha carabeed waxay lacag ku bixiyaan waxbarashada iyo caafimaadkoo la isku daray intay sigaar ku cabbaanba ka badan aduu qiyaas ummad muslima oo wasaaradda waxbarasho waxay lacag isticmaasho iyo wasaaradda caafimaadku waxay lacag isticmaasho marka la isku daro wasaaradda sigaar cabbistu ka badantay waa caalamkii carbeed aynu ka nimi caalamkii muslimiintu saasuu u yaallaa runtii hay-al caalamiya waxay ku tilmaamaysaa dunida 6 daqiiqiyo badhkii kastaba in qof sigaar uu u dhinto 6 daqiiqa maaha waa 6 sekond 6 sekond iyo badhkii kastaba inuu qof sigaar dilo ولذلك الجمعية الأمريكية لأطباء الأورام أما ururka Maraykanka ee dhakhaatiirta xanuunada bararada shiray mu'tamar ay lahaayeen ayaa waxa ka hadlay John Safrin nin la yiraahdo markaasuu wuxuu yidhi sigaar cabbistu ama qiiq cabbistu buu yidhi waa silaaxu الدمار الشامل الوحيد الذي يهدد البشرية عبر مختلف أنحاء الأرض WMD buu leeyahay WMD ga sama taqaaniin weapons of mass destruction bay yidhaahdaan wuxuu leeyahay waa hubka qura ee wax gumaada ee dunida lagu isticmaalay bini'aadamka khatarta ku haya waayo nuclear dunida 5 milyan ka dila sanad walba miyaa jira sigaarka iyo inta u dhibata 5 milyan bay gaadhaa baa la leeyahay qiiqiisa inta u baktida daraaso kaloo Maraykanku ay sameeyeen waxay tilmaamayaan dunida 30 milyan oo qof oo cusub sanad kasta sigaarka barta bay yidhaahdeen ku biira qaafilatul mudkhiniinka waxay 15 sannadood cilmi baadhis la samaynayo 4572 qof lagu sameeyey
ayaa waxay leeyihiin xataa ka cabbaya daa'iye kuwan agtooda lagu cabbay waxay aad ugu dhowdahay bay leeyihiin inay diabetes noqdaan xanuunka diabetesku inuu ku dhaco markaa soo duuduubo shiishaddu sigaarka inay ka khatarsantay mooyaane kama fiicna shiishadda iyo sigaar cabbistuna bulshada waxay ku hayaan dhib bulsheed mid caafimaad mid jidheed mid nafsiya khalaaya dimaaq xataa sigaarka wuu dilaa xataa waxaa la leeyahay environmentka iminka la leeyahay carbon monoxide iyo carbon dioxide kan la sii daynaya ha la yareeyo sigaar cabbistu waa waxyaabaha ugu badan ee la sii daaya bay ka mid tahay bini aadamku sigaarkan uu buufinayaan environmentka waxyaabaha qarribee ugu badan bay yara ku jirta maxaan ku soo duuduubayaa xukunkoodu waxaan oo dhan muxuu noqonayaa intan oo dhan waxaan idiin akhrinayay reer galbeed iyo meelahooda cilmigu waxa ay ka sheegeen haddii ay sidaasi dhab tahay bal aan qur-aankana idiin sheega markaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeya yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun waar dadka mu'miniinta u baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxa wanaagsan aan idinku arsaaqay cuna ilaahayna u mahad celiya sigaarku miyuu ka mid yahay waxa u wanaagsan iyo qiiq iyadoo la leeyahay 4,000 baa markii hore dhidhi maaha 4,000 oo maaddaa ku jira la leeyahay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiinna ha dilina waa qatli batii waa dil aayara ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay waanfiquu fii sabiili illaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ilaahay dartii wax ula baxa oo lafihiinna halaagka ku ridina baa la yidhi dhaqaale ahaan ninka sigaarka cabbaya waxaa ka roon ninka subaxii intuu iska soo toosay dhahaan iyo balwad yar baan leeyaho anigu 10 baawnd baan gubaa 10 baawnd subaxii marka guriga ka soo baxaya dabka saara maxaad odhan lahayd kaa subax walba ninka 10 baawnd dabka iska saara waxaa odhan lahayd inde waa maaha qof caadiya odhan lahayd waa lacag buu gubay ninka sigaarka cabbaya lacagtiina wuu gubay caafimaadkiina wuu xumeeyey wax badan buu kalu qarribay kanbaa ka roonoo kani lacag quluu gubay laakiin kani lacagna wuu gubay dhib badanoo tiro badanna wuu geystay ilaahayna wuxuuna leeyahay walaa tusrifuu innahu laa yuxibbu almusrifiin wara xadgudbina israafa samaynina walaa tubadiruu idan ikhwatii fi alcaqiida isaga qaadku mid buu dheeriyeyba waxa kale dragska dunida bulshooyinka inta badan dadka liita isticmaala innaga daraggeenna inta roon baa isticmaasha ummad bal adigu waxaad qiyaastaa aqoon-yahankeedii culimmadeedii hore qaar ka mida dhaqaalayahankeedii maxaa la ydhahaa caaqilkeedii suldaankeedii wasiirkeedii madaxweynaheedii intuba darag cabta bal adigu qiyaas yacni wax ghariiba waxay ahayd daragga bulshada inta liidataa inay cunto oo la yidhaahdo ummadda tanoo darag bay isticmaashaa laakiin daraggeeda dee bulshada inta liidataa isticmaasha laakiin bulsho haayer kalaaskeedu dabaqadeeda sare ay mudminiin dhammaanteed wadatay dabaqadeeda sare ay tahay naarkomaan ay wadayiin waa wax runtii aad loola yaabo qaadii sigaarkaba ikhwatii waa la iska dayn karaa horta qaadku isagu wuu ka fududiyey dayntiisu sigaarka wuu ka fududiyey waayo dibendeniska marka la xisaabinayo kuwa sare kuma jira qaadku kuwa ugu hooseeyuu ku jiraa iska dayntooda ay fududdahay sigaarkuna waa la dayn karaa laakiin waxaad u baahantahay inaad dayso dhowr shay kow ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim nadaradda aragtidaynu ka qabno sigaarka iyo qaadku marka hore inay aragti saliima noqoto waa wax fiican iyo waa wax lagu xaragooda iyo wax wakhtiga lasku sheekada intaad ilowdo inaad xaqiiqadiisa ogaatid markaad garato inuu waxan yahay sun aadaad jidhka ku dirqinayso ku buufinayso caqligu wuxuu keenayaa inaad go'aana qaadato inaad ka tagto waa marka labaad inaad ilaahay barido waa marka saddexaad inaad casiima yeelato go'aan inaad yeelato bini'aadamka caqligaa hoggaamiya
neef xoolaa maaha qofka bini'aadamkaahi saa daraaddeed waa sucuuba adayg baa ku jira in la joojiyo laakiin waa adayg laga gudbi karo qofka bini'aadamka hadduu go'aan yeesho wuu joojin karayaa waana badan yihin maraykan oo qudha dhowr sannadood waxay dhahaan 30 milyan oo qof baa sigaar iska daayey sigaarka oo kii ugu sarreeyey haddii la daayo waxa ka hooseeyana waa la dayn karaa idan waxaan ku soo koobaya wakhtiga gabagaba ahe sigaar iyo qaad waa la dayn karayaa caafimaad ahaanun baanan uga wax ka tilmaamay laakiin haddii mu'tabarka dhammaantii laga dhigo sigaar iyo qaad oo la isugu yeedho dhaqaalayahanadeenna iyo dhakhtaryahanadeenna iyo bulshadeenna iyo aqoon-yahankeenna waxaan isleeyahay kuma fillaadeen ka warrankiisa laakiin deriskan waxaa loogu talagalay inaynu isbaraarujinno dhaqaale ahaan haddaynu soomaalina waynu burburray waxaanu ka mid yahay sigaarku dawladaha yaryar ee soomaaliya ka dhisan qaar ka mid ah waxaa la isu qiimeeyey barjadka dawladduba ay sannadka ku shaqayso iyo intay qaadka dadku ku cuno waxa badan inta qaadka dadku ku cuno yacni inta qaadka lagu cunaa waxay ka badan tahay maxay barjadka dawladaha meesha ka dhisan oo dhan taa macnaheedu waxa weeyaan waynu hanti beellay oo wayna caqli tiray oo wayna caafimaad tiray oo wayna bulshadii buu burburiyey oo guryihii buu baabi'iyey oo carruurteenna soo socota ayaa ninnimada waxay u arkayaan in qaad iyo sigaar la cuno waayo inay bulshada ku biiraan waa inay goobaha raggu fadhiya dee tagaan bulshada dadka yaryari waxay egtaan dee dadka waaweyne waxay samaynayaan haddii madaxweynahaagu qayilayo wasiirkaagu qayilayo suldaankaagu qayilayo caaqilkaagu qayilayo dan maxaa u diidaya inanka yari inuu qayilo ama inuu sigaar cabbo ilaan dabaqadii bulshada u ahayd muuqaalka kuwaasiya dabaqadii uu rabay inuu ku biiro ama inuu hiigsadaa ficladay samaynayaan wuu samaynaya walidaalik inan yar ma odhan kartid war qaad iska daa war sigaar iska dah maanta dadkaan la hadlaya waxa weeyaan waa wasiirro waa madaxweynayaal waa salaatiin waa cuqaal waa aqoon-yahan waa waxgarad waa dhakhaatiib dhakhtar intuu buufiyo ku yidhaha sigaarku waa sumbalka war dhakhaatiirta soomaaliya aanu isba cabbaa waanu buufinaya waana dhakhtar waanu ka warramayaa inuu sun yahay waa runtii waa caqli dareer weeyaan yacni waa dadkii oo maanku uu ka sii guurayo waa nooc waalida ka mid ah qof arkaya wuxuu ku dhimanayo isticmaalaya waa nooc waalida ka mid ah runtii deriska runtii dhallinyarada waxaan leeyahay waa wax xun waxaasiya hal iska dhaaf waa yeelkana waxaan leeyahay war ummadda tusaale u noqda oo wax kale haddaana tusaale ugu noqonayn dhaqankaaga unugu noqo oo bilaahi calaykum wax kale haddaydan ugu noqonaynin warqaad iyo sigaarkuun iska daaya haddaa intaa soomaali ku taageertaan waxaan is leeyahay wax weyn baynu qaban kari lahayn mithaal basiitaan idin siinaya waddankan turkiga la yidhaahdo magaalada istanbuul la yidhaahdo xaafadda faatix la yidhaahdo masaajid baa ku yaalla saankiyedim baa la yidhaahdaa saankiyedim erayga af turkiga macnihiisa waxa weeyaan iftarad annanii akaltu aw kaannanii akaltu waaba anigii oo wax cunay nin fakhrudiin la odhan jiro oo muslim ahaa baa dhisay ninkaasi muxuu ka dhisay masaajidka dhan waxau ka dhisay waxa la yidhi markuu suuqa soo maro nin iska zaahida buu ahaa aw naftiisu wax yaroo ay kahatay uu arko ama uu jeclaaday khudaar yaroo fiican wax yaroo fiican ayuu wuxuu idhahaa ka soo qaad anigoo cunay dabeetana intaasuu sanduuq ku ridi jirin shaah buu u baahday ama koofuu baa wax yaroo uu jeceliyuu arkay ka soo qaad anigoo cabbay unbuu yidhaahdaa sanduuq buu ku ridaa sanduuqii buu berigii dambe furay masaajid buu sanduuqaasi dhisay ka soo qaad anigoo qaad cunay haddaad tidhaahdo meel ku riddo intaa hadda soomaaliyaba waa dhisaynaa wixii burburay oo dhan intaasaa ku filan